weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka hagaha nolosha oo kaaga imaanaya Mustaqbal Media. Nasrin, howlwadeennada caafimaadka ayaa bilaabay in mar kale ay bulshada ka wacyigeliyaan halista xanuunka. sidoo kale warbixinada ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyay COVID-19 ayaa noqday joogto Soomaaliya caalamkaba si bulshooyinka kala duwan ay u helaan akhbaarta xanuunka. saameynta uu ku yeelan karo mustaqbalka qofka ayaan kala sheekaysanay Dr. Cabdiweli Cabdulaahi oo ka mid ah howlwadeennada caafimaadka. haddii aan la muujin feejignaan dheeraad ah oo looga hortagayo ama la iskaga ilaalinayo cudurkan COVID-19 ama caabuqan, waxaa dhalan kara dhibaatooyin fara badan sida qofka haddii uu cudurkan dhowr mar ku dhaco ama uu la daba dheeraado, waxaa ku dhici kara qofkan in maxaa loo yaqaanaa calaamadihii la yaqaana calaamado ka duwan ay soo baxaan, sida xubnaha qaar inuu jirka ay saameyn adag ku yeelato ama ay faylgaroobaan ama ay shaqayn waayaan, sida maxaa loo yaqaanaa keliyaha, wadnaha iyo sanbabada oo kale. sidaas daraaddeed marka qofku waxaa haboon marka ugu horeysaba inuu iska ilaaliyo, haddii uu ku dhacana si saxa uu ula tacaalo. sida aad la socoto xanuunka dib ayuu usoo laba kacleeyey. marka aad fiiriso tallaabooyinka caafimaad sida ay dadku u qaadanayaan, ma tahay waxyaabihii habboonaa? sida caadiga ah ama sida aan wada ogsoonahay, waxaa jira tallaabooyin loogu talagalay in la raaco oo markasta ay noo sheegaan khubarada caafimaadka ama dhakhaatiirta, sida in nadaafada la ilaaliyo, gacmaha, midda jirka, midda deegaanka, in la ilaaliyo distansiga ama maxaa loo yaqaanaa kala fogaanshaha dadka, in la xirto waxyaalihii loogu talagalay badbaadada qofka. haddii marka intaa la sameyn waayo, waxay la mid tahay in aan la iska ilaalinin cudurkii oo si zaa'id uu kusii faafi doono, ama meesha laga filayo meel ahan uu ka soo baxo oo khatartiisa ay siyaado ayay noqonaysaa taas. dhalinyarada ayaa qayb ka ah dadka faafin kara xanuunka, maadaama meelo kala duwan laga yaabay inay tegayaan. haddana marka aad fiiriso qaadashada maaska ama waxyaabaha ay sameynayaan, ma kuu muuqanaysaa weli taxadirkii loo baahnaa inaynan la imaan? dhalinyarta waa xooga koowaad ee bulshada ay leedahay sida caadiga ah. haddana waxay muhiim u yihiin isku socodka bulshada iyo nolosheeda. waa dadka u shaqo taga bulshada oo maxaa loo yaqaana dadka ugu badan ee magaalada shaqeeya ama wadan kasta shaqeeya, dhalinyaro ayay u badan yihiin. waxay la tacaamulayaan bulsho aad u fara badan oo kala duwan. sidoo kale haddana hadhow waxay dib ugu laaban doonaan guryahooda. marka dhalinyarta haddii aysan naftooda aad uga taxadirin oo cudurka ayna iska ilaalinin oo maaskigii ayna qaadanin, nadaafadii ayna ilaalin, waxay halis ku tahay maxaa loo yaqaanaa bulshada. maxaa yeelay waxay u laaban doonaan guryahooda oo ay joogaan caruurtii iyo waayeelkii, hooyooyinkii, aabayaashii iyo maxaa loo yaqaanaa sidoo kale waxay la falgeli doonaan dad qaba cudurada maxaa loo yaqaanaa kroniga oo iyadana dhibaato horle usii keeni doono haddii cudurkan uu ku dhaco. marka dhalinyartu waxay aad iyo aad uga qayb qaadan karaan cudurkan in laga hortago iyo in la faafiyo. haddii ay dhalinyartu aad ugu dadaasho maxaa loo yaqaanaa ka hortaga cudurkan, aad ayay bulshada seef u noqonaysaa ama uga badbaadaysaa. laakiin hadday taxadar muujin waayaan, waxay caddaynaysaa khatar weyn inay taagan tahay. ma jirtaa saameyn uu xanuunka COVID-19 ku yeelan karo mustaqbalka qofka ka bogsashada kadib? qofka markuu cudurka ku dhaco, yani wuxuu ka saameeyaa xubno muhiima, sidaan hore u sheegnay, sanbabada, keliyaha, maskaxda. waxaa laga yaabaa marka haddii cudurkan uu sii daba dheeraado ama marka uu ka bogsadaba in uu kusii reebo calaamado ama waxyaabo uga tago, sida cuduradii hore ee caabuqa corona uu sababay, SARS iyo MERS. waxaa lagu arki karaa marka qofka in oo maxaa loo yaqaanaa wadnihiisa dahaarka ku samaysan ama murqaha wadnaha in dhaawacyo lagu arko. qofki maxaa loo yaqaanaa inuu daal iyo dareemo maxaa loo yaqaanaa kor xanuun. marka calaamado sii jiri doono way dhici karaan inay mararka qaar la arko, laakiin ma badno. dadka qaar markuu xanuunka ka bogsado waxay ka sheegtaan kor xanuun oo kale, tabardari. xiriir intee la eg bay la leedahay waxyaabaha hadda aad noo sheegaysay? xiriir way yeelan karaan. maxaa yeelay qofka inta uu maxaa loo yaqaanaa cudurkan hayo, cudurkan sida caadiga wuxuu weeraraa difaaca jirka ayuu weeraraa, maadaama jirka uu iska caabin badan ku jiray oo intuu qofkan bogsanayay ama qofkan inta uu xanuunsanaaba uu jirkiisa dagaalamayay, waxaa ka soo bixi doona inuu hadhow uu daal dareemo. maxaa yeelay jirkiisa wuxuu bixiyey juhdi aad u fara badan. qofkan intuu cudurka hayay waxaa laga yaabaa inuu stress badan hayay, inuu walwal badan hayay, psychological problem inay hayeen. marka way saameyn karaan, aad ayayna uga soo bixi karaan qofka, lagu arki karaa calaamadahaas. marka xaaladdu meeshaas oo kale ay gaarto, maxaa la gudboon in dadku ay sameeyaan? bahda caafimaadkase maxay ku caawin kartaa? qofka markii uu waxyaalahaas isku arko ama uu recovery ka qaato maxaa loo yaqaanaa cudurkan, waxaa qurux badan ama hagaagsan ama fiican inuu isticmaalo sidii awalba ahayd, inuu marka hore isticmaalo waxyaalaha difaaca jirka kor usoo qaada, inuu qaato nasiino,
inuu qaato hurdo ku filan oo jirkiisa maxaa loo yaqaana maskax ahaan iyo jir ahaanba uu u nasto. dhakhaatiirta caafimaadkana waxaa laga rabaa ama dadka caafimaadka bahda caafimaadka kuwa la taliyaasha caafimaadka dhammaan waxaa laga rabaa iyakana inay dadkaas psychology ahaan maxaa loo yaqaana talooyin u siiyaan ay nafsaani ahaanna u dejiyaan qofkan waxaa laga rabaa inuu nasto nafsaani ahaanna uu u nasto jir ahaanna uu u nasto. ugu dambeyn waa maxay taladaada caafimaad? taladeeda guud ee ummadda Soomaaliyeed aan u jeedinaya waxay tahay ka taxadara naftiina ilaaliya cudurkan iska ilaaliya guryihiina iyo bulshadiina iyo caruurtiina iyo waalidkiina iyo waayilkeena ilaaliya idinka oo raacayaan hababka caafimaadka loogu talagalay sida nadaafadda in la ilaaliyo gacmaha jirka deegaanka iyo kala fogaanshahaba iyo in la isticmaalo waxyaalaha loo yaqaano PPE-ga ama personal protective equipmentska oo loogu talagalay qofka inuu isku badbaadiyo sida galoofiska maasiska iyo waxyaalaha la midka ah. waxa uu ahaa Dr. Cabdiweli Cabdulaahi Cabdiweli oo la hadlay barnaamijka Hagaha Nolosha idaacadda Mustaqbal. isaga ayaa ugu dambeeyay guud ahaan barnaamijka. waa Nasriin iyo Cabbaas oo idin leh nabadgeliyo. fadlan fariintaada noogu reeb barteena Facebook. bulshada Soomaaliyeed ilaaha badbaada